بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن إدل أهان تيم بميل والبوعة عالم كجوكتان كسو دوادة تلفزيون كقرن SNTV استوديو لندن وانيقو أحفاد مفاندة إيه بهذا استوديو لندن وحن دلنا هاي ميل والبوعة جوكتان با سلام أيان إدين سو قد بنينا وبرنامج كي دلنيرada waa barnaamijkan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogan in ay ku kala qaataan ama ay ku kala faa'iideystaan waxtarkooda iyo hawshooda barnaamijku wuxuu soo bandhigayaa wax qabadka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo heerka ay gaareen iyo wax qabadkooda sidoo yahay barnaamijku wuxuu si gooniye mar walba u daawanaya ama uu il gooniye ugu eegaya dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed waxtarka dhalinyarada Soomaaliyeed dhanka wanaagsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed mar walbana barnaamijku wuxuu goobaabin u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay wax qabsadaan barnaamijka mar walba waxaanu ku soo qaadanaa ama aan marti u noqonaa dhalinyaro Soomaaliyeed ee iyagu waxtar sameeyay waxaan kaliya oon aadnaa ama aan beegsanaa ama il gooniye ku fiirnaa dhalinyarada ayaga waxtara ama wax qabsada barnaamijkana wuxuu si gooniya markasta isha u saaraya dhalinyarada Soomaaliyeed dhanka kale barnaamijku wuxuu dhalinyarada u sheegayaa in uu soo dhaweynayo mar walba habeen iyo maalin uu soo dhaweynayo ayuu u sheegayaa barnaamijku bahda telefishinka meel walba ay joogaanna waxay hambalyo u diriyaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhaqdhaqaaqooda wax qabsigooda iyo horumarka ay sameeyeen inta aan iyagu sameeyna waxa la leeyahay waa idin sugaynaa soo dhaqaaqa waqtigiini ayaa la taagan yahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u sheegaynaa dadka waaweyn in ay dhalinyarada guubaabiyaan oo wax u sheegaan oo wixii qaldan iyo wixii saxna ay hore u soo arkeen in ay la kala socodsiiyaan taas inaad adiga marka sameeyso adigoo qof weyn ah waxaan u ogolaanay qadka taleefanka in ay kala qayb qaataan mar walbana ay ku baraarujiyaan hawsha ay markaas ama kilibyada aan u soo diyaarno ay daawadaan inay ku baraarujiyaan ku dhiirigeliyaan ay tusaan luqadda Soomaaliga markii ay si fiican ugu hadli waayaan in aysan micnaheeda ahayn inaysan waxba aqoonin ama uusan wadanka iyo dadku ay u baahnayn in ay tusaan ayaan ayagana markooda dadka waaweyn waxaan leenahay fadlan dhalinyarada guubaabiya kuwa guryaha idinla jooga iyo kuwa banaanka jooga aad ku aragtaan mar walba u sheega inuu wadankooda ayaga sugayo dadkooda ayaga sugayo in wadanka lagu laabto kaliya ma aha wax qabadku waxa loo baahan yahay idinkoo jooga meeshiina dadka Soomaalida oo idin baahan dhalinyaro inaad caawisaan dhibaatooyin badan ayaa jira sidaan wada ognahay wax la soo koobi karana ma ahan inta kale ayaan u daynaynaa hadii Ilaahay ka raali noqdo laakiin anagu waxaan si gooniye u beegsanaynaa dhalinyarada wax qaabatay barnaamijku wuxuu waqtiga ugu dambeeyay marti uu ahaa koox isku tagtay oo abuurtay ayaga maskaxdooda ku alifatay in ay Soomaalida agtooda joogta ay caawiyaan dhibaatada ay ka caawiyaan waxa ay qaban karaan ama ay dhaamaan in ay maaragtay ay u soo gudbiyaan ama ay u sheegaan inay u qaban karaan annaguna waan soo booqanay imikana waxaan diyaar u nahay inaan idin soo bandhigno kadibna waxaan idin ogolaan doonaa qadka taleefanka hadii Ilaahay ka raali noqdo soo wac fikirkaada ka dhiib ra'yigaaga u soo gudbi kala tasho caruurtaada una sheeg in uu jiro wadan iyo dad u baahan nala daawada meeshii aan booqanay iyo dhalinyarada aan u tagnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن إذا لهانتي بميل البعض عالم كنجا دعوانا يسان كسر هذا برنامج كده اللي يرد أنا قلت لك قلنا أمد الصوماليات إن أي كوك لفائدة يستان أي واحد كوك لقاتان هدي الله أود له وكرر لنقطة سيدا أنا رأيي إن كوك شغلة وما أنت برنامج كوه مرتوي هاي أما أو مرتوي مخنيا الصومالي كوميونتي هانسلو reer Haniislow ayaa marti barnaamijka u yahay waxa jooga dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax tareen oo wax qabteen waxaan daawanay in muddo ah waxa ay sameeyeen waxay isugu waceen hooyooyinka Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed waxay isku dayeen oo u istaageen shacabkooda inay wax u qabtaan oo la nool oo la degan waa ciyaal yar sidaad u jeedaan qaar aad ka garan kartaan hadaad wajiyadooda daawataan laakiin waxay u istaagsan oo halkan u taagan inay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay wax u qabtaan waxay gelisay farxad aad u weyn waxaan filayaa dad badan markay daawadaan inay farxad gelin doonto hadii Allah awood leh ka raali noqdo muhiimada ayaan ugu wici doonaa intuu waqtigu ku saamaxo qofka ugu horeeya aan ugu wici doono wuxuu noqonayaa senator Faarax oo isagu ah maamulaha ugu sareeya isaga ayaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa si uu noogu sharaxo waxa ka keenay
in uu sameeyo ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed inuu u istaago oo dhexda u xirto oo soo u fiirinin qabiil iyo meesha ka yimaadeen iyo Soomaaliya dhinacii ka soo jeedaan laakiin uu istaago inuu ka soo celiyo dhibka haysta iyo problemka jira isaga ayaan ku soo dhaweynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض ما سنتهاي ولا سببت كلي إنه كلفتي إن أنا ما عرفتي إسكحل قامنه أنا جو ما عرفت أهل يدل يرى حافظة شرر بدن بان قبل قابلني أنا جو كهل اللي ما عرفتي دباتوين كا شعب كصومالي الدجمة حنس وكله كسبين يهين وحنا كم ده هذا ما عرفت وحبر الشدة وأرددي إن الصوماليين الجار ما عرفت معلمين تكوهيان social services ما عرفت لنا عافمات كا لنا guryaha dhinaca ayda kirada iyo canshuurta guriga iyo maaragtay urur la'aan cod la'aan iyo maaragtay dadkii oo aan lahayn meel ay tagaan marka ay dhibaateystaan marka dadkii dhibaateysan oo dhibaatooyinkii la dabaalanaya ayaanu la kulanay dabadeedna annagiiba maaragtay dib dambe iskugu noqonay 2 sano ayaanu maaragtay sharar qaban qaabinay banka inasmaan soo dhigin dhexdayadii maaragtay anigii dhalinyarada ayaa heshiis naga dhexdhacay heshiiskaasina wuxuu ahaa sidii aanu dadkeena ku beegan galbeedka London aanu horumar u gaarsiin lahayn mulajeedaduna waxay ahayd inaanu sameeyno urur Soomaalida oo dhan caawiya si aan ma aragtay loo kala jarjarin isla markaasna wada magac baxay Hanislow Somali Community maadaama aanu deganahay degmada Hanislow laakiin Soomaali kasta oo degan galbeedka London iyo meelaha kaleba ay ka soo qayb qaadan karayaan marka sababta kaliya nagu kalifa waxa weeye in ay ummadeena Soomaaliyeed ay helaan urur wacan oo wanaagsan iyo codkoodii oo markasta meel kasta laga maqli karayo taas ayaa nagu kaliftay walaa dadka ku nool Hanislow oo hadda ku daawanaya qaarkood ama maqli doona hadii Ilaahay ka raali noqdo hadii ay ku yimaadaan oo ay haysato dhibaato guryaha ah ama caruurta ah ama waxbarashada ama caafimaadka ma u maleynaysaa inaad tusi karto halka ay ka bixi lahaayeen ama wixii ay sameyn lahaayeen sidee u maleynaysaa adiga walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidii aan ma aragtay u qaban qaabeynay 6 bilood la soo dhaafay ummadda Soomaaliyeed ee degmada Hanislow inka ku sugan iyo kuwa kale ee imika memberka noo noqday ee ma aragtay outside Hanislow degan waxay la wada socdaan inaanu shaqaalaysiin doono xiriiriyaha waxbarashada xiriiriyaha guryaha xiriiriyaha ma aragtay dhalinta yar xiriiriyaha askarta xiriiriyaha ma aragtay xabsiga xiriiriyaha ma aragtay social services waxaas oo dhan waxa lagu shaqaalaysiin doonaa maadaama ay shacabkii Soomaaliyeed ay lacag wada bixiyeen lacagtaasina ay ahayd membership lacagtaas ayaa lagu shaqaalaysiinaya dadkaas marka waalid hooyo gabar aabo adeer abti ay la wada yimaadaan mar alaaliye markay u baahdaan in la caawiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin hal qof oo Soomaali ah ama wiil ahaado ama gabar ahaado ayaa loo xil saaray dadkaas ayaa caawinaya hortaagnaanaya taageeraya dabadeedna xaqoodii lagu xadgudbay u soo dhicinaya insha Allah taala Ilaahay ka raali noqdo waxaan filayaa inaad ka wada bagateen daawadayaal meel walba caalamka ka joogtaan waliba waxaan si toos ah ugu sheegayaa Soomaalida Hanislow ku nool hadii Ilaahay ka raali noqdo iminkana qof kamid ah ama qof iyo laba ayaan u wici doonaa adiga ayaan kuugu horeysiinayaa waxaan noo sheegtaa qaybta aad ka qaabilsan tahay iyo waxa assalaamu calaykum aniga Saadiya Maxamed Bahli lidaho I'm helping the Somali community with the education ciyaalkeena ka farxino with whatever they need and we're trying our best in Asamano thank you waxaan filayaa wali waxaan u jeedaa dhaqdhaqaaq fircoon waxaan wacayaa haddana wiil yar oo kamid ah wiilasha aan u jeeday markii ay hawshu socotay sidii u firfircoonayeen haddana aan waco hay magacaaga iyo waxaad qabataan rabaa inaan ogaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu maxaa la dhahaa Aadan Ibrahim Samaan and waxaan qabtaa football trainer ilmaha football baraa ilmaha yariista oo Soomaalida ay kamid tahay marmarna hadda dadka oo aan inta ku dhashteen xitaa waan barnaa alxamdulillah waan ku mahadsannahay maanta wixii dhacay oo meesha ka dhacay and meesha maanta maxaa ka dhacay barnaamij weyn oo loogu baahnaa intay ka dhacday Ingiriiska oo Soomaalida ay uga maamahan tahay like Soomaalida inta waxa loo fiiriyo way fiican tahay inta la fiiriyo oo waji inta la yeesho way fiican tahay sida la future-ka loo aqaano iyo ilmahana yariiska hadda soo korayeen sidaan u korin lahayn intaan ka fikirna fiican ilmahana yariiska inta I don't want them to end up with social care iyo dad cadaan gurigooda ay seexanayaan because hooyo Soomaaliya dhashay hooyaday oo kale oo Soomaaliya dhashay maxaan ka fahalnay maxaa weeye we're thanking Allah for maanta waxa dhacay
alxamdulilah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddana waxaan ku xijinayaa gabar kale waxaa noo sheegtaa magacaaga iyo waxa aad qabato. magacayga Faaduma Maxamed Tahliya la yiraahdaa. waxaa u maaday inaan help garay walaalahayga Soomaaliyeed aan ilmaha ka farxiyo. waxaa sameynayay maanta face painting iyo cilaan to make them happy. inkana waxaan wacayaa gabar kale oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonida ka muuqata reer Hanislow. magacaaga iyo waxaad qabato noo sheeg. magacayga waa Fatiyad Nagaya. waxaan isla samaynay saddexdii sano la soo dhaafay aan isla shaqaynaynay. xaaskan ka dheelana waxa waaye treasurer. so waa dhinaca lacagta iyo dhinaca donationska. laakiin qayb walba waan iska caawinaa haddii loo baahan yahay. okay gabdhaha adigoo kaleeta ah oo wadanka jooga maxaa leedahay ingiriiska kula jooga ama Hanislow ama meel kale kula jooga maxaa u sheegaysaa ku baraarujinaysaa? waan ku baraarujinahay inay soo caawistaan. waxa la waxay rabaan way qabsan karaan haddii isku taxalujiyaan. qofka wax ka hor istaagan ma jiro. dadkana way is caawinayaan. so inay caawinaantaas raadsadaan waxay rabaan isku taxalujiyaan ay sameeyaan aan ku baraarujinahay. okay waa mahadsantahay. waa hagaag weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waliba reer Hanislow oo aan caawa marti u nahay. reer Hanislow weli faray kama qodna laakiin iminka waxaan wacayaa wiilka ugu yar ma dhigi karo ugu yar laakiin wuu yar yahay. haddana wax badan ayaa la ii sheegay inuu sameeyo oo firfircooni dheeraada uu muujiyey marka waliba ciyaaraha xaggooda. marka waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo magacaaga iyo ciyaaraha nooca aad samaysiin iyo qaybtaad qaabilsantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي قاعد فتاح وحن كتر سنة هاي ويلش دنيرة يكونوا حافظ هانسلو. أنا قا سمسن سوق لي حافظ هانسلو وحن صاحبها سمتر عن قابين كنا عيارة حق فوتبولكا يا حق باسكتبول كنت بدن. markaas waxaan bilawnayna dhalinyarada ku nool xaafadda Hanislow inaan ka caawino wax ka soo baahin xagga waxbarashada xagga ciyaaraha iyo meel kasta wax caawin uga baahan yihiin. marka dhalinyarada adigoo kaleeta ah oo wadankan kula joogta maxaad leedahay oo u sheegaysaa oo leedahay sameeya adiga ahaan? waxaan oran lahaa intaad suuqa warwareegsiin meelo Soomaaliya oo youthka lagu sameeyo ama meelo kale way buuxaan. every area has meel youth ku ciyaaraan. marka waxaan oran lahaa meesha galo. waa tahay weli sidii ayay noo maraysaa. magacaaga? my name is Jawahir Ali Hassan. adigana? anigana sameeya Jaamac Roble. maxaa qabataan idinka barnaamijka maxaa qabataan? we help children and we help the children like painting and different activity. okay gabdhaha idinkoo kaleeta ah maxaa u sheegaysaan inay sameeyaan? waxaan oran lahaa dadkan iyo kale iskiyo kale inay fiicantahay inay caawin lahaayeen dadka da'da yar maadaama iyagu ka yihiin ka experience badan yihiin dadkayga da'da ka yar. aad ayaad u mahadsantihiin. waa tahay waxaan filayaa barnaamijku waa gabagabo. iminkana qofka ugu dambeeya oo madaxa maamulo ah ayaan Samatar ayaan dib ugu laabanayaa oo su'aal yar weydiinaya. Samatar su'aasha ugu dambaysa oo ku weydiinaya waxay tahay dhalinyarada kula degan wadankan kuma dhahay Hanislow kaliya dhalinyaro badan ayaa jirta wadanka Ingiriiska degan. maxay tahay arrinka ugu dambeeya oo aad ku guubaabinayso oo aad leedahay wax qabsada ama wax sameeyo oo aad jeclaan lahayd ama maadaama aad ku dhex jirto adiga dhalinyaradii maxaad ku dhaliilaysaa maxaad isleedahay haddaad maanta aad u sheegi lahayd ama ay ogaan lahaayeen waxbay ka qaban lahaayeen? mikrofoonka iyo kaamirada adiga ayaa iskale. aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal. waa su'aal qiimo leh haddii aan jawaabteeda ku siiyo waxaan leeyahay walaalayaalo marka ugu horeysa dad diin leh baanu nahay dad dhaqan leh baanu lahay. ku dadaala inaad dhaqankiina sii xajisataan ku dadaala inaad diinta si fiican u dhex gashaan. hooyooyinkana waxaan ka codsanayaa siiba waalidiinta oo dhan yaana noqonayn in xun aanan ka hadlin keliya hooyooyinka. waalidiinta oo dhan waxaan leeyahay daawadayaal caruurtiina si fiican u tarbiyeeya. hadday u baahan yihiin ma aragtay dhaqan celis idinku ma aragtay dib dambe ugu qaban qaabiya inaad barnaamij ku saabsan diinteenna iyo dhaqankeenna iyo waxaanu hidada u leenahay inaad bartiin caruurteenna. waxaanu damacsanahay mustaqbalka dambe insha allahu tacaala waan ku guulaysan doonaa
hawshii baanu wadnaa Somali community center markaanu samaysano oo nu furano oo loo hirgalo maaragtay degmooyinka kalena ay nagu tusaale qaataan aanu shacabka Soomaaliyeedna u soo bandhigno barnaamijyo kala duwan ay iyagu door bideen oo loo hagaajinayo wax allaalihi waxay u baahan yihiin loo qaban qaabiyo aad iyo aad baad maasantahay waa tahay waxaan wanaagsan sidaan hore idinkugu sheegnay barnaamijkeena caawa intaas ayuu ku eg yahay intaynu dib marti uga noqonayna mid kan mid lamida sidaas ayaan idinkaga tagay anigoo ah Faadimo Faande waxaan filayaa daawadayaasha qiimaha leh inaad ka wada bogateen barnaamijkii aan martida ugu noqonay dhalinyarada reer Hanislow waxaan run ahaantii dhex qaaday oo aan daawanayay dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan hawsha ay qabanayaan sida ay wax u sameynayaan intaas oo dhan ayaan isku dayay in aan maaragtay dhex qaado alxamdulillah way ii suurtowday waxaana ii soo baxday hadii aan mustaqbalka hadii ilaahay ka raali noqdo dhalinyarada noocan oo kaleeta ah la guubaabiyo ama la tuso inay wax qabanayaan inta iyo in ka badan in ay sameyn doonaan marka waalidiinta iyo dadka waaweyn waxaan mar kale ka codsanaynaa caruurta idinka agtiina joogta ee dhalinyarada ah wax ayay qaban karaan wax weyn ayay bedeli karaan fadlan tusa in uu jiro dad iyo dal u baahan aad ayaad u mahadsantihiin dhanka kale waxaan u gudbaynaa khadka taleefanka oo aan ugu talagalnay ummadda Soomaaliyeed in ay iyaguna markooda ay kaamirada iyo mikrofoonkaba ay qaataan oo ay ka faa'iideystaan oo dhalinyarada maanta daawanaysa ama caawa daawanaysa ama dib u daawan doonto in ay ayaguna markooda ay u sheegaan khadka taleefanka ayaan u gudbayaa hello السلام عليكم وعليكم السلام مقعدة مقعيقة وحنا يرادا سحينو سعيدو ها سعيدة هل كان نقصة وعيسى سحينو وحي كسو وعيسى نوروي اياد نقصة وعيسى نعيمو مس سعيدو سحينو اوكي سحينو سو دو برنامج كدلينيرada aad ayuu ku soo dhaweynaya waxaan rabaa inaad marka adigana aad ku soo gudbiso wixii aad maanta noogu tala gashay aniga horta gabar yar oo dhalinyaro ma ihi hooyo Soomaaliyeed aan qof weynaan ahay ma sha Allah horta waan salaamayaa dhamaantiin barnaamijka daadinayso iyo inta ka shaqeynayso shaqaalaha ka ah barnaamijka dhan ilmaha Soomaalida dhulalkan qurbaha jooga waxaan u maleynaa horta kuwa in badan oo ku mashquul ah inay si jireen TV-yada Soomaalida ama ay barnaamijkaas la socodoonin laakiin waan rajaynaa inay la socdaan runtii waxaan isku daynay dhinaca internetka xaafadaha meelaha ay isugu yimaadaan in aan wargelino oo dhigno warqado yar yar ama aan message u dirno si ay ula xiriiraan telefishinka oo ay barnaamijkooda ay uga qayb qaataan marka hadda tirada nala socota run ahaantii ma ahan tiro yar alxamdulillah waxaan filayaa in aan inta iyo in ka badan aan la soo qabsan doono marka adiga dhinacaaga maxaad u soo gudbin lahayd kuwa hadda ku maqlaya iyo kuwa ku maqli doonaba إن شاء الله كواس waxaan u soo gudbinaa inay la socdaan barnaamijyadaas inay la socdaan waxa wadankoodii ka dhaca laakiin waxa xanuun badan ku haysa kuwa wadankii jooga ee habaabinta lagu hayo sida maxaan ku iraahdaa xabad oo kale ama madfac la tuuro kale loo qarxinayo kuwaas ayaa dhibaato badan ugu marka waxa u baahan wacyigelin badan oo inta ka badan waxa u baahan kuwa wadankii lagu hayo oo dadkii qarxinayo oo la marin habaabiyay oo diinteena qaladka laga fahamsiiyay kuwaasa waxay u baahan yihiin in wax badan loo sheego oo wax badan lagu bixiyo dadkan meeshan ku nool oo dhulalkan ku nool kulli qof aan walba iyo waalidkii iyo gurigooda joogay mujtamac iyo dadka uu mataqaana oo markaas ku xiran yahay waa laga yaabaa inay waxyaabo badan ka faa'iideystaan ay ka helaan laakiin dadka la marin habaabiyay ee u baahan dhaqan celin iyo taageero iyo caawino iyo in dhibaatada laga soo saaro dadka u baahan waa dhalinyarada Soomaaliya ku baabaaday ee balaayada gacanta u gashay waxaan Ilaahay ka baryaa in Ilaahay kuwaas naga qabto mashaakilka ay wadaan iyo dhibaatada ay wadaan in xarigay maleegayaan in Ilaahay iyaga mid ka daran u maleegaan Ilaahay uga baryaa caruurta meesha ku baaba'aysan in Ilaahay nooga soo sameeyo adiga barnaamijkan waxaad kula dadaashin dadka meeshaas lagu baylaheeyay oo lagu dhibaatayna insha Allah waxaan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ku kala dab qaataan oo ay isku bartaan oo ay wax ku qabsadaan marka waxaan filayaa in ay intaas ay ka dhageysteen aad ayaad u baahsan tahay barnaamijyada kale tan la soco hadii Ilaahay ka raali noqdo aad ayaad u mahadsan tahay maamo
waxaan filayaa weli bartamaha ayaan uga jirnaa barnaamijkan dhalinyarada ugu talagalnay iminkana waxaan u gudbayaa qadka xiga hallo halo assalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga walaal magacaygu waa abba soomaaliyeed waxaa la yidhaha maxamed cabdiraxmaan maxamuud halkeed naga soo waceysaa walaal waxaan ka soo wacayaa xaafadda hanislow hanislow okay hanislow waa xaafadii uu ahaa martida barnaamijka caawa waa kugu soo dhaweyneynaa barnaamijka dhalinyarada maxaad ugu talagashay dhankaaga maxaad kusoo gudbinaysaa walaal waxaa weeye runtii horta waa barnaamij aada loogu farxo waxaan dhihi karaa dhalinyaradeennu baahi badan bay u qabtaa isku xidhnaanta iyo in maaragtay soomaalinimadooda ay maaragtay ku faanaan iyo in maaragtay wadankan aan joognan ku noolnahay in maaragtay ay qeyb lixaad le ka qaataan marka runtii waxaan dhihi lahaa haddaan iri hanislow ama anoo ku hadlaya magaca abayaasha hanislow baan u taageeraynaa waana soo dhaweyneynaa insha allahu contributionkan waxbaan ka bixinaynaa marka waxaan leenahay dhalinyarada ha dadaaleeno waxa barteeno ha isku xidhnaadeeno ha ogaadeena wadankan inuu yahay wadankii mustaqbalka maaragtay ay wax badan ka qaban lahaayeen wadankeenii kalena ay wax uga qaban lahaayeen anigu intaas soo jeedin lahaa aada ayaad u mahadsan tahay waxaan filayaa inay ku dhagaysanayaan haddii aysan kuwa ku maqlin way ku maqli doonaan haddii allaha awoodale ka raali noqdo intaada yareed nagala soo qayb gashana barnaamijka waan kaaga mahad celinaynaa waxaan ugu talagalnay barnaamijkan dhalinyarada soomaaliyeed meel walbo ay caalamka ka joogaan in ay iskaga warqabaan oo ay iskugu soo gudbiyaan waxtarkooda iyo waxqabadkooda weliba barnaamijku wuxuu si weyn u beegsanayaa in isbedel yimaado oo aan wax bedelno haddii allaha awoodale uu ka raali noqdo bedelka qof kaliya ama hal qof ama hal meel laguma samayn karo waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed dhammaantood in ay ka wada shaqeeyaan wanaaga si horumar loo gaaro dhalinyarada soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la tuso jidka wanaagsan haddii aan loo sheegin iyagu ma garan karaan waxay la korayaan nolol kale ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa waalidiinta waxaan ka codsanaynaa dadka diinta le waxaan ka codsanaynaa in ay caruurta tusaan dhalinyarada tusaan jidka wanaagsan oo ay faraan waxa wanaagsan qof kasta oo wax wanaagsan haysana barnaamijka aada ayuu usoo dhaweynayaa weli qadka taleefonka ayaa lagu jiraa waalidiinta iyo dadka waaweyn aan u ogolaano inay markooda ayaguna ay hawada u marsiiyaan dhalinyarada baraarujintooda hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga magacayga waxaa la yidhaahdaa hooyo soomaaliyeed xaawo dheer halkeed naga soo waceysaa london abaayo waxaan ka midahay boorkii dalka waan jecelahay dhalinyarada soomaaliyeed aada ayaan u filayaa inay ayaguna ku jecel yihiin waxaa kale oo tala horta ilmuhu group ayaa jiro abaayo group walba wuxuu leeyahay habaryaray wuxuyna taladuna wax ilmaheenana badanaa waxa haleeya ama dhalinyaranimada ka dhumiyo waxa waaye badanaa ama aaba la-aanta ama hooyo la-aanta waa dareemita marka waxaa loo baahan yahay abaabul wadajir ah inaad u samaysaan caruurta oo aad moralkooda kor u qaadaan oo aad ka tiirisaan qof walbaa wixii ka dhiman ilen cunuga hadduu aaba ka dhiman yahana aabuu raadinaya oo hooyadiisa bareed tahay haddii hooyadii ay ka dhimatana hooyuu raadinaa oo waxbaa ka dhiman wixii ka dhiman kuwii dhamaystiri lahaa ilaahay hanaga wada dhigo markaad hooyo tahana cunugaaga keliya hooyo uma ihid waxaad tahay hooyo guud aada ayaad u mahadsan tahay caruurta soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed telefishinka qaranka iyo dowladda iyo weliba waxgaradka wadanka waxay u istaageen in ay caawiyaan caruurtooda in aysan ilaawin caruurtooda in ay wax usoo kordhiyaan ama ay wax ku daraan caruurtooda shacabkana waxaa laga codsanayaa inay dhankooda caruurtii ay koriyeen ay kasoo riixaan oo ay tusaan in uu jiro jid wanaagsan waxaana filaynaa mustaqbalka maalmaha soo socda iyo sanadyada soo socdo in aan wax ka weyn intaan aan aragno isbedel ka weyn intaan aan aragno haddii ilaahay ka raali noqdo waxaana hiigsanaynaa inaan wax bedelno haddii allaha awoodal uu ka raali noqdo marka idinkana waxaan idinka codsanaynaa in aad ka qayb qaadataan baraarujinta caruurtiina qof walba haddii uu gurigiisa soo baraarujiyo guri kasta wuu hagaagaya qadka ayaan iminkana u ogolaanayaa si ay waqtigooda ay iyaguna ummadda u qaadato hallo
waxaan filayaa qadka ayaa ka go-ay hallo waxaan filayaa uma suurtoobin qofkaas inuu hawada soo helo mar kale aan ku celiyo hallo ha magacaaga magacayga Saciid waaye waa aad baan ugu faraxsanahay Saciid halkee naga soo wacaysaa waxaan idinka soo wacayaa London ayaad Saciid naga soo wacaysaa barnaamijka qayb ka mid London ayuu caawa marti aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradaas isqaban qaabisay oo barnaamijka quruxda badan soo bandhigtay adiguna waa ku mahadsan tahay laakiin hal baan kaa codsanayaa fadlan ka daa caruurta waxaa tidhahaa dhalinyarada si ay maaragtay dad xilkasa u noqdaanin waana ku faraxsanahay waxaan xasuustaa samatar ninka ugu weyn oo arrinta wada aad baan ugu faraxsanahay waa nin wanaagsan waana u ducaynaynaa hawshii anagu aanu qaban lahayn oo nala ka rabay in aanu soo qabano buu qabtay waxaan leenahay ilaahay kaa ajar siiyo waana kula jiraa contributionkana waa la bixinaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waana u imaanaynaa waa kusoo xirmaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo barnaamijkana waa barnaamijka dhalinyarada waalidiintana meel walba ay caalamka ka joogaan wuu soo dhaweynayaa in ay ayagana markooda ay ugu soo gudbiyaan caruurtooda ama dhalinyaradooda kow waxaa laga soo bilaabaa caruurta kadib ayaa dhalinyarada la imaanaya haddii aan adigoon caruur ahayn waxba laguu sameynin adigoo dhalinyaraha waxba ma sameyn karaysa way kugu adkaanaysaa marka barnaamij kastana oo aan u tagnana dhalinyarada ayaan u tegaynaa qadka taleefonka ayaan iminkana u gudbayaa hallo ha magacaaga maxamed allah maxamed halkee naga soo wacaysaa Sweden ayaad naga soo wacaysaa maxamed aad ayaan kuu soo dhaweynayaa barnaamijkan waa barnaamij aan u abuurnay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ku kala faa'iideystaan oo waxqabadkooda ay ku soo bandhigaan haddii Allah awoodda uu ka raali noqdo hal meel oo kaliya maahan marka adiga dhankaaga maxaad ku soo gudbinaysaa waxaan filayaa maxamed uu ka go-ay qadka taleefonka waa u suurtoobi weysay in uu halkaa kasii wato laakiin qadka xiga ayaan u gudbayaa oo fursada siinaya hallo hallo ha magacaaga magacaygu waa ayaan cabdiraxmaan waxaa ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku nool London soo dhawow ayaan aniga ahaantii waxaa aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed in isku duubmaan oo sameystaan organization isku bartaan waalidiinta Soomaaliyeed iyo doqooshinkii iyo dadka naga horeeyay wadankeena burburiyeen anaa wadankeena sameysano oo isku duubnaano anagoo qaadanayna magaca dhalinyarada Soomaaliyeed oo tribalism iyo waxaas dhan iska dhaafno dhalinyarada adigoo kaleeto ah oo kula eg maxaa u sheegaysaa inay iyagu sameeyaan waxaa u sheegi lahaa inay Facebook-yada iyo Twitter iyo organization sameysano oo hal af ku wada hadlno waxqabadkana maxaad dhihi lahayd Facebook marka laga soo tago hadaydi hadaa isku duubanahay later on ma weynaano waxaan noqonaynaa one hal af ku hadleynaa therefore hadaydi wadankeena insha Allah wuu noo fiicnaan doonaa waa tahay ayaan dadaal waxaa lagaa rabaa inaad dadaashid waa lagu sugayaa wadankaaga iyo dadkaaga iyo dalkaaga way ku sugayaan allahana ku soo koriyo waxaan u gudbayaa qadadka kaleeto oo taleefanka haddii Allah awoodda leh uu ka raali noqdo si ay waalidiinta iyo dadka waaweyn ay caruurtooda ama dhalinyaradooda ay ugu baraarujiyaan dhanka wanaagsan annaguna aan ugu gudbino qadka xiga ayaan u gudbayaa hallo ha magacaaga magacayga waa Faisal waxaan kasoo hadlayaa Sheffield Faisal soo dhawow Sheffield ayaad kasoo hadlaysaa Faisal barnaamijka aad ayuu ku soo dhaweynayaa waa barnaamij loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan xagaaga maxaad ku darsan lahayd wallahi aad iyo aad mahadsantihiin waa intaan maanta TV daawan oo barnaamijka u fiicnaa arko oo looga hadlayo wax wanaagsan dhalinyarada Soomaaliyeed oo isku tagtay oo wax qabsanaysa oo dadaalaysa halkan waxaan jeclaan in sidoo kale ay yeelaan oo ku daydaan marka intii TV-da ka socota waa barnaamij ugu qaalisanaa oo la xusi karo maanta in aad dadkiina soo aadaabulay dhalinyaradii kale oo soo boqoteen aad mahadsantihiin
waxaan filayaa barnaamijka Sheffield inuu marti u soo noqon doono hadii Allah awood la ka raali noqdo meel kasta oo ay dhalinyaro joogtana Faisal aad iyo aad ayay noola weyn tahay dhalinyarada Soomaaliyeedna diyaar ugu nahay inaan ugu tagno meeshay joogan ay waxa ay hayaan aan ka soo gudbisano waxa aan haynana aan u gudbino hadii Allah awood la ka raali noqdo marka ugu dambaysa marka Faisal maxaad ku baraarujinaysaa dhalinyarada oo waxaan filayaa Faisal qadka ayaa ka go'ay waa ka xumahay mar kale ayaa dab ugu soo laaban doontaa barnaamijyada soo socda kuwa taxanaa weeye kuwa joogsan doona ma aha ilaa aan ka aragno ummadda Soomaaliyeed oo mid ah oo hal ah dhalinyaradoduna ay wax qabteen oo ay wax weyn bedeleen insha Allah qadka telefoonka ayaan u gudbiyaa halo ha magacaaga magacayga maxamed xuseen ibrahim aliiraada kuwa joogo maxamed adigoo iga raali ah telefishinka ma iska gaabin kartaa wax yar maxamed halkeed igala soo hadlaysaa wadanka Kuwait ayaad igala soo hadlaysaa waxaan filayaa barnaamijka si weyn ayaad ula socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa loogu talagalay meel walba ay caalamka ka joogaan adiga dhinkaaga maxaad ku soo dari lahayd waa barnaamij fiican caawa in aan idinkala qayb qaato dhalinyarada Soomaaliyeed waa salaamaya kuwa gaar ahaan kuwa ciidamada ku jiro iyo kuwa dalka joogo iyo kuwa dibadda jooga dhamaantoodba waxaan kula dardaarmi lahaa dhalinyarada kuwooda kale inay ku biiraan ciidamada qalabka sida kuwa kaleeto markii ciidamada qalabka sida la buuxiyo inta soo hartana maxaad kula dardaarmi lahayd inta soo hartay waxaan kula dardaarmi lahaa inay taageeraan nabadda iyo isdhexgalka bulshada soona celiyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan oo dhan qof walba dhankiisa uu ka qabto idinka reer Kuwait ahaan ma leedihiin meelo dhalinyaradu ay timaado ama si gooni ay isku arkaan qorshihiin iyo qaabkiin waa see idinka reer Kuwait ahaan adigoo ka faa'iideysanaya fursadda ummadda ku wada dhageysanaya waa jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku duuban anaga reer Kuwait ahaan oo isku duubanahay mar walba waa isku duubanahay waana ka qayb qaadanaa nabadda iyo dib u soo celinta ummadeena ururo dhalinyaro waa jiraan oo isku duuban qof walba Soomaali ama dhalinyaro ha ahaado ama غير dhalinyaro ha ahaadee waxaa loogu baahan yahay inay dalkooda dhistaan waa xilligii loo baahnaa waxaan rabaa inaan fursaddan ugu faa'iideysto dhalinyaradii ku geeriyootay ee shuhadada ahaa xaruntii baarlamaanka dalkeena waa u tacsiyeynaya ilaahay ha u naxariisto آمين أنت دمتو مسلم الله ونحرسته آد أيضا ما تصنتهاي كسو قيب قلق برنامج كاغا سيقوني أيان إدين سو دوينينا رير كويت هداتهين إمن كان وحان وقود بينا قادتك تليفنك أو أيدتك شعبك كتيران أي وقود تلقلين اللي يردو إن أي كبرى رجيان أما أي وقسو قود بيان وحي أي تعلان لهايين إن أي نقضان هلو ها مقعادة سعيد معنا مرحبا كوكوسو نقضي اوكي قدك ayaa kaago ay marka hore faraxsanahay mana malayn karo farxadayda sida aan maartay ugu farxay dhalinyarada iyo barnaamijka ay soo gudbiseen maanta taariikhda intaan daawanayo telefishinada Soomaaliya kii ugu fiicnaa ama qofka niyadiisa soo jiidan kara buu noqday waa mahadsantiin dadaala dhalinyaradana waxaan leeyahay kuwa maqlaya iyo kuwa maqli doonaba sida dhalinyarada ayada ka aftaayna oo walaalihiina ku dayda iskula xiraada suna imaada haddaan anagu waayeelkiina ka waaweynaa haddaan wax weynay idinba waxda hagaajin karaan marka intaasaan idin faraya waana mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay adigaa mudan aad iyo aad ayaan kuugu hambalyeynaynaa markastana waan kuu hambalyeynaynaa adiga iyo dadka noocaaga oo kaleeta ummadda Soomaaliyeed waalidiinta Soomaaliyeed dadka waaweyn waxaan dhammaantood wargelinaynaa
in aan u diyaarinay dhalinyarada Soomaaliyeed meel loogu talagalay in lagu soo celiyo oo dib loogu baraarujiyo oo lagu tuso jidka oo fiican oo suuban idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad dhankiina ka soo riixdaan oo tustaan dhanka wanaagsan haddii aysan hooyada ama waalidka ama qofka markaas dhalinyarada uu warka ka dhageysto uusan tusin jidka wanaagsan hal qof ma tusi karo midda kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa barnaamijkan inay ayaga leeyihiin indhahoodii yahay dhagahoodii yahay ka faa'iideysta wixii aad ku soo ridataan waxaan kale si gooni aan dhalinyarada mar kale ugu soo celinaynaa in uu ku banaan yahay booskaagi adiga oo shakhsi ah uu ku banaan yahay booskaagi oo aad ugu gudbin karto shacabkaaga meel walba caalamka ka joogan ha ka daahin ka faa'iideyso booskaaga qadka telefoonka ayaan u gudbayaa hello assalaamu magacaaga عبد الحميد شيخ جيران waxaan kala ku hadlaa Mombasa magaalada Kenya kusoo dhawow barnaamijka dhalinyarada aan ugu talagalnay Soomaaliyeed waxaan filayaa in aad maqlaysay dadkii waaweynaa iyo dadkii yaryaraaba wixii ay sameynayeen barnaamijkan waa barnaamij lagu baraarujinayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo la tusayo inay wax qabsadaan marka adiga dhankaaga maxaad ku soo dari lahayd xamaasanta aan dhageystay dhalinyarada waxa qabaan aniga ra'yigay waxa waaye dhalinyarada inay si loo sameeyo organization waxaan filayaa qadka ayaa ka go'ay oo uu u suurtoobi weysay inuu halkaas ka sii wato fikirkiisii ama taladiisii qadka kale ayaan haddana fursad siinayaa hello 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 ha telefishinka ma iska gaaban kartaa adigoo raalliya magacaaga magacayga mukhtaar allaha mukhtaar halkeed joogtaa mukhtaar xaafada Kingston aan joogaa runtii mukhtaar kusoo dhawaad barnaamijka dhalinyarada barnaamijka ku dhawahay walaalay aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijka aad keentay barnaamij loo baahan yahay waaye mukhtaar dhalinyarada adiga maxaa ugu soo baraarujin lahayd maxaad u soo gudbin lahayd maxaad u sheegi lahayd dhalinyarada wallahi dhalinyarada waxaan u sheegi lahaa horta maaragtay in isku yimaado waa arin fiican in aan isku xirnaano dhalinyarada kan caruurta iyo kan weyn iyo kan dhexdhexaadka in isku keeno waa arin fiican waxaan ku soo dari lahaa aniga horta dhalinyarada diaspora ahaan joogaan in af Soomaaliga ay xoojiyaan وهجاج أفصومالي وحوجيسنا هدي إن بدن لو واحد لو واحد والبوحي وباه إن قاد لان وحن أركا تنجار بدن أركا أفصومالي إن قاد لو روا من قاد لكرا كوا في عن أي بكتيران أو ولي بكوها لكرا إريو كوا واحد شري عن حتى هالحب بكوها لكرين مركا تاس وحي نقول قادنا يسا إن قفل بو أفصومالي كوها له وقت أي نقول قادنا يسا لكن أنا وحن دنينا ناكلية لو قدر دون تكو هذا إن ولي صومالي حسوسن تهاي dadka iyo dalku ay ku baahan marka adiga ahaan maxaad ku baraarujinaysaa dadka dhalinyarada ah oo ku soo dhaweynaysa aniga waxaan ku soo dhaweynayaa dhalinyarada in ay ka qayb qaataan ku xirnaashada barnaamijkan aad uga faa'iideystaan hadii la yiraahdo maaragtay inna maskaxda lagu hayo mar walba dalkii hore in maaragtay bari kamaalan aan u qabo loo qabta mustaqbal okay idinka meesha degantihiin mukhtaar dhalinyaro ma joogtaa sidee iskula xiriirtiin intee in la eg ayaa qiyaasi kartaa wax yar ma uga warbixin kartaa dadka ku daawanaya Soomaaliyeed aad iyo aad dhalinyarada way buuxaan wayna badan yihiin marmar ayaa maaragtay weekendiga waxay isku yimaadaan balooni kubaday deelaan kubada markay ay deelaan intaas dhalinyaro isku timaada waxaad sameynaya dhalinyaradan dhalinyaro kala baxsan ma ahan dad isku xiran waaye marka waxaad dareemi kartaa inay dhalinyarada ay isku xirayeen ay buuxaan haddana haddii maaragtay barnaamijka sii adkeeyo sii adkaanaya sii fiicnaanaya insha Allah moor maaragtay dhalinyarada badan laisku keeno waqti la samaysto meel isku yimaado amiin taam la samaysto marka waxaan filayaa adiga degmo ahaan ama xaafad ahaan meeshaad hadda ka soo hadlayso dhalinyaro badan ayaa codkaaga garan doonto kuwaas iyo kuwa kaleba maxaad ku baraarujin lahayd xaggaaga waxaan u sheegayaa inaan maaragtay aan isku xirnaano
in maaragtay qof walba fikradiisa uu dhiibto uu keeno fikradda adiga kugu jirta waxaa laga yaabaa in aniga ugu jiro in iskaashto maaragtay waa mid muhiim ah inaan iska dhaafno waxyaalaha qaar laakiin aan si dhabta aan laga dhaweeyo arrintan aad iyo aad looga faa'iidaysto barnaamijkan aa keentay walaale aad iyo aad leedahay hawsha ka muhiimsan hadalka aad iyo aad hawsha iyo ficilka inaan sameyno maadaama arrintan la bilaabay aysan noqonin mid maaragtay oo maaragtay dhamaystirneed وإنه وقتك إن شاء الله هدي إلهي كرالي نقضة وحول ببلاو أي إليهين وبلوغي وبراروتشنتي وتسدي جدك وناكسنا وأنا قلت لك الندان يرضى مركي قد كتلافن كودتك لأي كتيران درتين أيام سلامة يا آد أيام أمهات سنتهاي برنامجك كسو قيب قلقك كسو قيب كشي هلو السلام وعليكم السلام مقعاقة هل كان نقصى وعيسى نوروي؟ نوروي نقصى وعيسى برنامجك بالغيرة آد بكوسو دوينيا والله سنتا ورا سيدا فرادنا والله سنتا برنامج كتبهن يساعد بنا وفرق تناعي وانا برنامج آد وفيعن وقيمة قال له دادك معناها مرضان يفتن ما تيك الفائدي شكرا أنا أركز زي ده مركو وحان لا يحي معرض برنامج كان dadka hogaanku hayo waa inay baahiyaan waa inay wadanka ay London iyo Yurubta kale dalba dhalinyarta meelkiisa ku nool yihiin inay gaarsiiyaan ay ku sameeyaan xarumo iyo meelo macna dhalinyarta laga wacyigeliyo waan ugu talagalnay hadii Allah awood uu ka raali noqdana meel walba ay dhalinyarada Soomaaliyeed joogto wayna tagi doonaa kaamiradeena iyo mikrofoonkeena wuu soo booqan doonaa ee wax qabadkooda iyo waxtarkoodana waan ku soo gudbin doonaa marka adiga xaggaaga maxaad kula dardaarmaysaa dhalinyarada ku daawan doonta dhalinyarada barnaamijkan la xiriirta maxaad u sheegi lahayd adoo ka faa'iideysanay waqtigaaga dhalinyarta waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarta sida barnaamijka dhalinyarta Soomaaliyeed waxa dhiban ee dhawaatada haday tahay kuwa dalka joogi haday tahay kuwa maaragtay qurbaha jooga dadka dhawaatada ku dhacs waa ayaga dadka ay macnaha badaha ku dhamaana waa ayaga dadka cadawga u loogan ee meel kasta macnaha maaragtay ku daadsan waa ayaga dadka macnaha maaragtay problemada macnaha kala duwan haysto haday tahay mid caafimaad mid waxbarasho mid macnaha maaragtay dhaqaale mid wadariyad haysto waa ayaga marka waxa loo baahan dhalinyarta isku duubnida kaga bixi karaan waxa soo idil أنا أتسجل وحنا كعصنا لينات الصوماليات وحجرت كهذا أمريكا له كل جزء مالتها ما أنت إني فقد وحلا كلاب سلام وحي وحلا كلاب شكرا ومن ماذا لينات بالشدة الصوماليات إني مدوبان إنما عرفت ما أنت مو مقنع له مو قد لينات الصوماليات ما أنت أيها معناها ما أنت وح حلاقة يهوج كل عوايه حدي دون يعني إني فقد ما أنت أي وفران حمدوان بالله ملك يجوا مرال كل مت حنقضه مسخحونا من حنقطه أنا أودونا من حنقطه إن شاء الله إلهي وحنا كغير جينا يدفع برنامج كان دادينا يكون جولستان إن شاء الله أنا قرأ وحنا مرال بسبورت قرن وأنا أدبنا وسبورت قرن أرنكا أيها ما تقول إن شاء الله هذا أيضا ما سنتهاي وحن في ليا للنيرة بدن إنه هذا الكاس دم خدونا أما تابن دونا طلب هذا ونكسن إيقاظن دونا ندي الله أود الأكرة لنوض للنيرة الصومالية إنه حلو جبها يعني إن أي وحقبت كوذا أي وحتر كوذا أي صوب بندقان أي تسان شعب كوذا هل كأود دود أي دمتاي للنيرة يميل والبعض عالم ككتشوكتان برنامج كان ديار أي إديني هاي إنه ماشى تشوكتان يميل والبعض إنه كصوب باقضة أو اللي بوحقبت كينا صوب بندقان دي الله أود الأكرة لنوض dhanka kaleeto wali waxa ku jira qadka telefoonka shacabka dadka waaweyn doonaya in ay ummadda Soomaaliyeed dhalinyaradeeda ay u faa'iideeyaan oo ay waaniyaan iyagana waan u ogolnahay qadka telefoonka waqtiyada loogu talagalay barnaamijkan markuu hawada ku jiro waxa Ilaahay ka baryeynaa inaad nala soo kulantaan waqti walbana oo barnaamijkan aad aragtaan live ah dadka waaweyn oo idinka ayaa iskale waanadana dhankiina weeye qadkan u gudbiya hello هلو عواكم الله مقعاقة عواكم الله وعكس مقعيقة وصلاة حيث وعكس الله يا كويت صلاة كسو دوو كويت اياد نقصة وعيسا برنامج كتاليراد آت ايو كسو دووين يا صلاة محاد اديك دنكاقة كو قدبين لهيد او داليراد او شيقي لهيد والله هو برنامج في عن ورطة بلودين واددالين برنامج هذا في حوايا ونوع عصب دقاها Soomaalida ku cusub
oo aan la arag intii soomaaliya ay jirtay in dhalinyarada dalkooda la baro iyo dadkooda ayagana la isbaro. barnaamijkan horta waa cusub yahay, waa nagu cusub yahay haddaan Soomaali nahay. waayo dawladihii dalka soo maray iyo halgamayaashii dalka soo maray looma ay sheegin inaan dalka annaga leenahay. haddii loo sheegi lahaa inay dalka ayaga leeyihiin, dadka dadkoodii uu yahay, hooyooyinka ay yihiin iyo hooyooyinkood, saatan ma noqdeen dalka. marka barnaamij fiican oo aada bilowdeen weeye, horta allah idinku guuleeyo. amiin. dhalinyaradana waxaan leeyahay, dhalinyaray isu badnaada oo isbarta, dalkiinana saas u dhaqama. waayo dhibaatada dadka wada hadda waa dad dhalinyaro ah oo xumaanka laga xaday oo aan ogeyn inay dalka ayaga leeyihiin. qoladiinan idaacadda saxaafiyiintana waxaan leeyahay u badiya dhalinyarada dhegahooda inay dalka ayaga leeyihiin. insha allah. dadka ay rixinayaan inay dadkooda yihiin. marka waanahay madaxda iyo weliba shacabkana waxaan leenahay dhalinyarada baraarujinteeda iyo howlqabadkeeda iyo waxqabadkeeda iyo waxtarkeeda mar walba ilgooniya ku haya. qof kastoo Soomaaliyana barnaamijkan wuu u furan yahay. dhalinyaro kastoo Soomaali ah oo wax haysa cusub ama wax hore u jiraba kulli waan soo dhaweyneynaa. qof walba dhalinyaro ah oo firfircooni gooniye sameeya ama isle adiga haddii aad waxaan soo bandhigi lahayd wax weyn ayuu bedelayaa, waan soo dhaweyneynaa. fadlan noo keen, annaga ayaa kuu gudbinaynaa haddii ilaahay awoodda leh uu ka raali noqdo. weli qadka taleefanka ayaan ku jirnaa oo waxaan ugu talagalnay in aan ugu gudbino dhalinyarada waalidiintooda sida ay u baraarujinayaan iyo sida ay u jecel yihiin in dhalinyaradu ay kasoo qayb gasho barnaamijyada noocan oo kaleeta. qadka taleefanka ayaan u gudbayaa. hallo. السلام عليكم. وعليكم السلام. magacaaga؟ عبد الرحمن الشقدار. عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa؟ waxaan ka soo wacayaa magaalada Boorame ee gobolka Wadad. Boorame Soomaaliya ayaad naga soo wacaysaa. ku soo dhawow Cabdiraxmaan. barnaamijkan waa barnaamij dhalinyarada Soomaaliyeed loogu talagalay meel walba ay caalamka ka joogaan. adiga maadaama aad wadanka joogto si gooniye ayaan ku qadarinaynaa. waxaan ku leenahay dhalinyarada sidee tahay kuma weydiinayo, laakiin waxaan ku leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa banaanka iyo kuwa gudaha maxaad ku baraarujin lahayd oo u soo gudbin lahayd dhankaaga؟ wallahi horta barnaamijkani aad buu wanaagsan yahay kowde. aad ayaad u mahadsantahay. waana barnaamij dabcan in badan la sugaya. dhalintuna dabcan maanta waxa ay qabanayso dabcan kuwa horta qurbaha waa dabcan kaalintoodii inkastoo ay haleelin qaar baa wanaagsan oo dabcan dalkii yimaado wax qabto, qaarna dabcan dalka joogana way fiican yihiin wax way barteen, qaarka joogana dabcan dhibka maanta dhacaya fursad u yihiin inkastoo la qabtay, qaarna si qaldan wax loo fahmiyay. waa garanay. marka dabcan horta dhalinyaradu maanta waa dabcan mustaqbalka wixii loo wareegi lahaa dalka waa iyaga. maanta waxa ay sugayeen waa iyaga. marka dabcan inkastoo dhalintu ay kaalintooda ay helin ay dadkii ay baraarujin lahay wax u sheegi lahay, barnaamijkan aad buu u fiican yahay. waa barnaamij dabcan dhalintu isku keenay. marka Cabdiraxmaan adiga ma aaminsan tahay barnaamijkan in uu wax bedeli doono؟ ما شاء الله برنامج كان عاد أنا طبعا حتى وحن جعلها استقاسة طبعا إن ولا حريرنا وبرنامج طبعا طبعا كوسو قدنا ما هاي الدليل ذو ما أنت طبعا أزعاج كنا لش طبعا ما أنت ذلك وحى وكذا بيوعدك طبعا ذلك ما راح وصل ذلك تمامرين وحن دردارن أحن وجدلها إن ما أنت الدليل ذو أي ما أنت استي خاصة وقدريان أي طبعا أي ولاد الدارمان أي ما أنت أي تصان وناق ما هاي القفقة دي ما أنت وناق لا توصل طبعا wuxuu is ogyahay in mas'uuliyad ay fuusho. marka dhalintu hadii inkastoo maanta ay dhalintu qaarkood maanta ay marka ay dabcan ka soo qaadato markii dalal badan aad tegayso kala ama dalalka Afrika aad tegayso kala ama dalal fiican noqoto in lagu baarayo oo dhalin ahaan lagu baarayo oo laga shakirayo qaldan dabcan qof walaalka dhalinyaro ah wax soo geystay ahaan dibkiisa ka kulmayso. marka waxaan ilaa dhalinyaradu maanta wax iyaga wanaajin karo iyagana qaadi karo, laakiin muhiimadu waxay tahay انت وحقرده وحكون احسن انت وحا طبعا وناك سمينسو هدي انت وناك سمينسو استاغتو قعدتو عبد الرحمن waa ka xunnahay
waqtigoon noo suurtoobaynin inaan waqti kale kusii ogolaano waqtigoon nagu yar aawadiis barnaamijku wuxuu noqon doonaa barnaamij taxano ah oo ummadda Soomaaliyeed aan ugu talagalnay waa barnaamij aan mar walbo hawada kasoo dayn doono haddii ilaahay uu ka raali noqdo toddobaadkiiba mar dhanka kale dhalinyarada waxaan u sheegaynaa inay iyaga leeyihiin barnaamijkan caawa intaas ayuu nooga eg yahay anigoo Faadimo Faande ah iyo telefishinka qaranka SNTV sidaas ayaan idinkaga tagaynaa dib intaynu isku arkayno barnaamijkan mid la mid ah waa anigoo Faadimo Faande iyo tiimkaygaba waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu